بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo arbaca 12 September 2019 halkan garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ee Garowe waxa soo gaaray oo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha ayaa maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa wadamada Ethiopia iyo Imaaraadka soo dhaweyntiisa waxa maanta hogaaminayay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo waliba gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Abukaati Cabdicasiis oo ahna sidoo kale kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda Puntland Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha garsoorka saraakiisha ciidamada ee dawladda Puntland ayaa iyana joogay iyo dadweyne kale dhamaana waxay u dhacday soo dhaweyntu si aad u wanaagsan toddobaadkan oo hadda maanta soo dhaweynta madaxweynuhu ay dhacdo dalka dib ugu soo laabtay waa toddobaad taariikhi ah ee reer Puntland meel walba joogaan waana toddobaad la isu diyaarinayo qabsoomida shirka maalgashiga ee Puntland oo qorshuhu yahay inuu bilowdo 15 ilaa 17 September 2019 shirkaasi oo dabcaysna indhaha adduunka haatan ku soo jeedaan oo looga hadlayo fursadaha maalgashiga ka jira Puntland shirkado badan oo adduunka dacaladiisa ka kala yimi iyo madaxna ay isugu iman doonto aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa warbaahinta Puntland meel walba joogaan iyo sida mar walba door uga qaataan tibinta dhacdooyinka tooska ah iyo sida wararka ay u soo gudbiyaan guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed